السلام عليكم أحبابي ميرو بأجوبتان وادن سلامة أولاشينا دوريسو جيا ما أنتو حانك هرلينا عذر كله يقال salbangitis waa caabuq ama infection saameeya ama ku dhaca tuubooyinka makaanka waxaana caabuqan dadka qaba ka soo daaha ama khalkhal gasha caadada marka ugu dambeysana waxa aad u yaraada fursadaha dhalmada ee gabdhaha cudurka loo yaqaan salbangitis calaamadaha lagu garto waxa kamid ah qoyaan ka yimaada xagga hoose gaar ahaan qoyaan midabkiisu uu bedelan yahay shiir la socda dhiiga caadada in gabdhuhu aad ugu xanuunsato iyo gabadha oo jamaacada dhexdeeda ku dareento xanuun saa'id ah sidoo kale calaamadaha cudurkan lagu garto waxa kamid ah in dhiig yar ka yimaado inta u dhaxayso labada wareeg ee caadada dhabar xanuun caloosha oo dhinac ama labada dhinacba ee xanuunta qandho yar yar dhabar xanuun joogto ah iyo lalabo mararka qaarkiisa xanuunkan waxa keena ama sababa nooc kamid ah bakteeriyada sidoo kale xanuunkan waxa keeni kara cudurrada lagu kala qaado galmada qaybo kamid ah haweenka la xanuunsanaya cudurkan ayaa aad ugu soo badanaya marka loo eego sanadihii hore waa xanuun la daaweyn karo aadna ugu fudud si dhab ah haddii loo baaro iyadoo laga duulayo astaamaha cudurkan sidoo kale xanuunka waxaa dhici karta in saameyn uu ku yeesho galmada timaha qofka oo taata galmada iyo dhicis ama dilin uu imaado fitamiinada qaar oo jirka ka maqan bara in gabdhaha ka dareento xubinta hoose iyo fadhiga oo aad u badan waa waxyaabaha sabab u noqon kara xanuunkan sidoo kale xanuunkani ma saameyn toos ah iyo mid aan toosnayn ayuu u yeelan karaa ugxan-sidaha ama ugxan haysta